nin la yiraahdo Hani Mawla Uthman ayaa wuxuu yiri Uthman ibn Affan wuxuu ahaan jiray haduu qabri dul istaago qabri haduu soo maro uu ooyi jiray ila garkiisu yaani wax ilmadu ay qoyso wa Uthman ibn Affan markaas waxa lagu yiri tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hada nar iyo janna jirto oo markaad xusuusato ma ooyidid qabri markaad aragtana waad ooydaa see u jiraan markaas wuxuu yiri Uthman radiyallahu ta'ala anhu warda wuxuu yiri rasuul ilaahi baan maqlay sallallahu alayhi wasallam isagoo dhahaya al-qabru awwalu manazil al-akhirah qabrigu boosaska aakhiro meeshii ugu horeysay waay markay naftu ka baxdo lugta ugu horeysay iyo degmadii ugu horeysay iyo gurigii ugu horeeyay degi doonto aakhiro waa qabriga fa in yanju minhu fama ba'dahu aysaru minhu qabriga iyo hadii imtixaankiisa iyo dhibka ka jira ruuxu ka badbaado wixii ka dambeeyana waa ka fudud yahay wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu haduu qabriga iyo dhibka ka jira ruuxu ka badbaadi waayana wixii ka dambeeya ka sii daran buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu waligay muuqaal ma arkin buu yiri illa waxa ka argagax iyo naxdin badan qabriga muuqaal kasta shay kasto oo fiiriso oo ishaad u qabato wax ka muuqaal xun ma jiro qabriga iyo xaaladda ka jirta iyo muxuu ahay dhibaatada taal sidaas daraadeed xaaladdu qabriga ka bilaabanaysaa markii ruuxa la geeyo oo godka yarkee 2 mitir la geliyo oo dadkiisa iyo qaraabadiisa iyo xoolihiisa iyo kulli meesha la tago waa laga soo dareerayaa markii meesha lagu hubsado sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wa sallam saddex baa raacaya ehelkiisi xoolihiisi iyo amalkiisi laba markay godka ku hubsadaan way iska soo noqonayaan xoolihii way soo laabanayaan qaraabadii eheladiina way ka soo noqonayaan waxa meesha ku hadhaya oo qabriga la joogayo kuwa helinaya waa amalkiisi haduu u xun yahay iyo haduu u fiican yahay qabrigaasi marka waa meel imtixaan waay waa ka nabigu tafaasiisha faraha badan ka bixiyay sallallahu alayhi wasallam marka ruuxa la aaso iyadoo wali dadkii ayna ka tagin oo shanqadhoodiiba wali uu maqlayo in nafta lagu soo celinayo la soo fadhiisinayo la imtixaanayo su'aalo la weydiinayo sida kolba uu uga jawaabo ilaahay u waafajiyo in qabriga xaalkiisu u noqon doono ama beerbeeraha jannada kamida ama godgodadka naareed kamidu noqonaya halkaasaaba xaaladu ka bilaabanaysa laakiin inagu ma ogin ruuxi waa aasnay waana ka soo dhaqaaqnay Allahu a'lam inta wixii ka dambeeyay waxba kala ma socono saas daraadeed baa nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dadka qabriga lagu cadaabayo iyo cuquubada dadka ku haysata iyo dhibka ku haysata iyo qeylada ka baxaysa hadii aad maqli lahaydeen ma baydan is aasteenba waad kala carar mar alla markuu ruux dhido waad ka carar lahaydeen maydan aasteenba ruuxa laakiin ilaahay baa inaga qariyay tabaaraka wa taala oo dhagteena ka qariyay oo inaan maqalaba inoo diiday meeshaasi marka wax way dhib ka jira ama barwaaqo noqon qabrigu ama balaaye iyo dhibaato noqonaya halkaas marka ay ka bilaaban sidaas daraadeed manzilka iyo booskaasi markii laga gudbo ood muddo ku jirto adigu ama ku cadaabnow oo ciriiri iyo mugdi iyo garaacis iyo cadaab iyo dhib kala kulan ama barwaaqo iyo janno iyo raaxo iyo nasiino iyo kula kulan ila labada mid weey muddo markaad meesha ku jirto ila gadaal la soo celin maayo noloshii hore waa laga soo tagay geedi socdo weeye laga soo noqon maayo horay baa loo socdaa muddo markii lagu jiro dib hadana la soo celinaya waa la soo nooleynaya quraanku aad buu uga hadlay masalada soo nooleynta bacthiga iyo nashriga nushuurka soo nooleynta dambe aad buu quraanku xooga u saaray tusaalayaal aad far badanna waa ka bixiyay dhinacyo far badan baa bini aadamka laga tusaaleeyay waxyaalo dhintay oo ilaahay soo nooleeyay baa la tusay waxa lagu miithaaliyay oo tusaale looga dhigay allihii horaanba idinkoon jirin idin abuuray inuu idin soo celiyo waa la isaga qiyaastay
هاوين سوعلين إسحايل إذن كون جنبوا إذن قبل سوعلين محيطه وحلقوا مثالية الروب كدعي أو نلكي أو ميد النبات جوري أو بختي النولي يا كاسو كلا لقوا مثالية سيدا نلك اللون نولي بو إذن كان الدبل إذن كسو علينا يا يعني وحوي تصالها هذا القرآن كيسجن عاد بوسع العليا إلهي أود إنه أولي هاي بالله تصاليا علمي إيه إنه أقول أولي شركي بني آدم كمشوا كلا آدي أو محبك قرصانين كليه إنه ضحى وقت جمرك اللجارو نففيالكي روح والبمشوا قال إن لوجر رواقة يسوع استاجوا صباح أمرك إلهي نوحل ديدي كرماها وين ماشي سروح والبكسو كعيا وكان النبي نوشة صلى الله عليه وآله وسلم وقت جمرك اللجارو ربع دعية روب مركود دقه بني آدم كي روح والبمشي لجو عصي بيدبيع ذا سيجاريسا كدبنا دبيع ذا سمركي جارو دبّا شركي سوق صون نقنايا روحينا يسوق سيدي سيابو قبرك كسو كعيا نفتي با كوتشرتا وهبل وهبلا والله سو كعي ماشي اللي يمد حقه ويساس الله سو كعي waxa loo soo kacay marka aad iimaanayso meel yaro kooban oo ban ah oo banaan oo calaamad lahayn oo ruuxa dhawaaqay dhawaqiisa laga maqlayo dhinaca kale laga maqlayo oo ishaadu ay dhinaca u sheey qabanayso meel yarba aadamihii oo dhan la isugu keenaya xaaladda lagu sugan yahay sayu taala xadiidka Abdullah ibn Abbas bi sahih al-Bukhari wa ghayrihi nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yuhsharu an-nasu hufatan uratan ghurla ibn aadam ki waa la soo kulminaya bankaas iyo banaankaas la isugu keenaya ayagoo oo kabala ayagoo qaaqaawan ayagoo buuriye qab ah oo rag iyo dumarba wixii laga gooyay ee qashin ahaa uu ku yaalo markaas nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam akhriya bura ayadan akhriyay kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu markii ugu horeysay sidaan u abuurnay si lamidan ku soo celinayna adduunka markaad iimaanaysay waxa timid adoo qaawan adoo buuriye qab ah adigoo on waxba haysanin adoo waxba ka nixin adigoo xataa calaalkii lagu qaban lahaa iyo maradii lagu qaban lahaa aan wadanin oo sidanin waxaad qabsan kartana ayna jirin sidii aad adduunka ku timid ayaa qabrigana kaga soo baxaysaa waad qaawan tahay buuriye qabba tahay kaba ma haysatid sidaas lagu iimaanaya markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wa awwalu man yuksa ibrahim ruuxa ugu horeeya ee mara loo xidhi doono dadka khalqiga wada qaawan cidda ugu horeysay la asturi doono mara loo xidhi doono wa nabiyullaahi ibrahim bu nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam waxa yeelay nabiyullaahi ibrahim ilaahay dartiba loo qaawiyay dartiba cadab loogu tuuray isaga marka ilaahay abaalgud ugu dhigay marka ugu horeysay inuu mara u xidho rabbi tabaaraka wa taala meeshaas marka la iimaanaya meeshu say u taala banaankaas la isugu iimaanaya halka marka la isugu yimaado waa banaan cidhiidhi away banaanka cidhiidhiga la isugu yimidna haddana wuxuu la dheeryahay aadamaha halka isugu yimid waqti dheer bay meesha ku qaadanayaan 50000 sana konton kun oo sano bay taagnaanayaan xaalada kala gedisan iyo maraaxil kala gedisan bay marayaan cuqubaad iyo waxay la kulmayaan ahwaal iyo dhibaatooyin bay meesha la kulmayaan bankaasi la isugu yimid sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam tadnu ash-shamsu yawm al-qiyamah qorraxdii baa la soo dhaweynaya way soo dhawaan madaxooda la keenaya markaas waliba nabigu sidoo sheegay sallallahu alayhi wasallam kuleylka hadda ay leedahay mid aan ahayn baa lagu siyaadinaya kuleylkeeda iyadoo la soo dhaweeyay intaasoo milyan oo mitir ayadoo hadda inoo jirta intaasoo bilyanis ayay haddana macdaalka yaan kulkeeda la joogi laanahay dhulka korkiisa haday wax yar soo durki lahaydna kownka dhan waa dhalaali lahaa qorraxdaas la soo dhaweynaya markaas madaxeen la soo saaraya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yaghli minha alhamu
كما يغلي القدور مدح مسكحة بني آدم كا أيا كركريسا فر 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 ويكركريسا سيد دريغو كركرو أو كلاي مسكحة ولا كركريسا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركاسي ديديان ديدكي كبخاي با دولكا غليا markaasuu haddana dib u soo noqonaya ruux walba dambigiisu intuu dhanaabu dhididka kululi u qabanaya dadka qaarkood wuxuu u qabanaya aanqowga dhudhunka sinta iyo meesha laga xidho dharka dadka qaarkood dhididkoodaaba liqayaba yaani wuxuu xakameynaya dhididkii baaba liqayaba halkaas ay ku jirayaan maalin dheer oo ilaahay uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala konton kun oo sano ba xaaladda lagu jirayaa wala qaqaawan yahay cid maalinkaasi aad ciirsan karto iyo cid wax kula qaban karta iyo cid aad xataa hunguriyeyn karto ma jirto la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi labada isdalay waxba isuma qaban karaan يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ضدك كوجو حجاب وجودش عليه بعد ما كان كربنا يسوي كعرّيسا ويدا أبها ولا لها عرورت هذه حكتدي بل واحد شعلان الله أنت أذيجا أتفكته أنت أدونك أتشعلي دورن إن عاد مدح فرشك لقطه يجا معنا لوجو فرط أنت أدونك أتشعلي دورن هدي لي هذا إسكفرود هيلي كرتوا إسكفر الله يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه حتى قرابة هذه أهل هذه واحد شعلي دورن إن مدحك كفرة شعلان يسار لكن مهيلي كرتوا wax alla waxa dhulka korkiisa yaalo oo dhan maalinka hadii lagu siin lahaa waad isku furan lahayd laakiin ma lagu heesinayaa waa ma lagu siinayo jaaniskaasi waa lumay waa la soo dhaafay meel wax laga qabta lama joogo xaaladaas marka banki qiyaamada dadkii ku haysta muddo markay ku jiraan oo la rafaado oo la kadeedmo oo la gubto oo dhibaato fara badan bankaasi lagu maro ay dadku marka dambe waxay dhahayaan war rafaadnaye war ilaahay tabaaraka wa tacaala cid inoogu shafeecda bal aynu raadino yaa ilaahay yaan erga dirsanaa yaa ilaahay inoola hadla bal ilaahay rusushiisii hal raadiyo nabiyullaahi aadam baa loo tagayaa aadamow waad aragtaa silicana haysta bal ilaahay la hadal ilaahay u ergeesh noo shafeec aadam waa ka cudur daaranayaa geed baan cunay ilaahay ma hortay karo maanta rabbigay maanta wuxuu cadhaysay cadhowsan weligii cadhoonin ma hortay karo bal nuux u taga rasuulka ilaahay ugu horeeyay ilaahay soo diray way nuux bay u tagayaan nuuxna wuxuu leeyahay nafsi ma hortay karo ilaahay maanta ma dhiiran karo naftayda hadaan la faahiga la badbaadaba nabi ibraahim bay u tagayaan sidoo kale nabi nuux bay soo marayaan waxaan jeedaa nabi muuse calayhi salaam sidoo kale nabi ciise la soo maraya mid walba gacmuhu taagaya waa cudur daaranaya maanta wax ma qaban karo ilaahayna ma hortay karo maanta ilaahay wuxuu cadhaysan yahay cala usan weligii cadhoonin saas daraadeed nafsi say u soo socdaan nabi maxamed bay u imaanayaan sallallahu alayhi wasallam maxamedow rasuulkii u dambeeyay ilaahay diray baad ahayd muxuu ahay kanaad ahayd waa imaanayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala nooga shafeec bal sidan in loo dhaamo nala kala dareeriyo dadka la kala xukumo nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu istaagaya waa sujuudaya ilaahay buu baryayaa waxa loo furayaa baryooyin iyo tasbiix iyo xamdi iyo wax ilaahay uu ogsoon yahay oo ilaahay uu ku amaanayo ku baryaa ilaahay u furaya muddo markuu sujuudsanaado ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay maxamedow madaxa kor u qaado soo toos sal tu'ta ishfa' tushaffa' weydiiso waa lagu siinay maxaad rabtaa ergadaada waa la aqbalayaa markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam shafaacayaa wa shafaacada weyn ee khalqiga dhan wada gaaraysa shafaaca al-uzma maqaamka mahmuudka ah ee khalaa'iqdo dhan ay u wada mahad celinayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam maqaamkaasuu marka istaagaya rabbi tabaaraka wa tacaala markaasuu
khalaa'iqdii waxaa la furayaa marka in la kala xisaabiyo